dowladda dalka Kenya ayaa isku dayeysay mar kale in dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda ee Soomaaliya ee horyaala maxkamadda caalamiga ah ee ICJ sida ku cad dokumentiyo cusub oo ay jirtay. Arrintan ayaa khilaaf hor leh ka dhex abuurtay labada dal iyadoo ay Soomaaliya si xoogan uga hortimid damaca cusub ee Kenya ay uga baxsanayso inay cadaaladda wajahdo waqti xaadirkani. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed oo u warramay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta ay uga soo horjeesteen dalabka ka yimid Kenya iyo qodob fashilinaya damacooda. Waa run in dunida cudurkaasi ka dillaacay oo maqal furan oo maxkamadda gudaheeda ahi aanay dhici karaynin isku socodkii iyo waliba duulimaadadii lagu tegi lahaa magaalada Hague-na aanu jirin oo aanu shaqaynaynin. Hase yeeshee ay maxkamaddu soo saartay in shaqadeeda ay wadi doonto habka maqalka iyo muuqaalkaana ay dacwadaha ku dhageysan doonto, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed. Sida laga soo xigtay Maadi Maxamed Guuleed, waxaa jira kiisas dhowr ah oo ICJ ay ku dhageysatay habka fogaan aragga ee dunida wada isticmaasho waqti xaadirkani. Horta mar walba waxaa jirta in meel ka baxsan maxkamadda ha noqoto African Union ama urur goboleedka IGAD in rabitaanka Kenya uu ahaa in meel ka baxsan lagu qaado ama lagu dhageysto sifo diblomaasiya. Annaguse waxaanu aaminsanahay inay tahay arrintaas in lasoo afjaro maxkamadda gacanta ku haysaana ay ka kar noqdo, ayuu hadalkiisa sii raacsaday. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Soomaaliya Maadi ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo cadaadiska ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay saarayso dhigeeda Kenya. Dacwadeedka badda ee u dhexeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo bilowday bishii August ee sanadkii 2014, waxaana dhinacyadu isku hayaan goob hodan ku ah kheyraadka oo ku taal xadka labada wadan. Maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo socda shaaciso go'aankeeda ku aadan in kiisku uu ku dhacayo waqtigiisa iyo in kale, kaas oo ahaa 8 ilaa 12 bisha June ee foodayna ku soo haysa. Maxkamadda ICJ ayaa 5 Sebtembar 2019 ogolaatay codsi ka yimid Kenya oo ahaa in dib loo dhigo kiiska, waxaana xilligaasi ballan qaaday inaan mar kale kiiskaasi dib loo dhigi doonin. Cabdirasaaq Maajid, Qowl Media TV, magaalada Hargeysa.